السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحسنة كي تضباط وحديد مريكانك iyo dalal uu sheegay in ay saaxiib yihiin isku diyaarinayaan in ay qabtaan dowlatus military justified accord 23 oo loo soo gaabiyo AJ 23 kaasi oo ah arbis military oo caalami ah multinational command post exercise kaasi oo sida ay sheegeen qaybihiisa ugu badan laga hagayo ama uu ka qabsoomayo saldhig military oo ku yaala wadanka Jamhuuriyadda Djibouti qaybihiisa kalena ka qabsoomayaan Berbera iyo magaalooyin dhowr ah oo ku yaala Kenya sida deegaanka Isiolo iyo Nairobi. inta aynaan faahfaahimo dheeraad ah ka bixin wadamada ka qaybgalaya arbiskan isku dhafka ah ee military taariikhda markii uu soo bilowday iyo goobaha sanadihii hore lagu qabtay aniga oo kaashanaya xog rasmi ah oo aan maalmihii ugu dambeeyay ka soo ururinayay wasaaradda difaaca Mareykanka iyo taliska Africom ee Mareykanka waxa aan marka hore eegaynaa qaybaha uu arbiskan military ka kooban yahay iyo waxa mid walba lagu qaban doono. qaybaha arbiskan military ee isku dhafka ah waxa uu ka koobnaan doona sida tan: qayb tababar ah oo ay saraakiil military oo Mareykan ahi ciidamada wadamada kale ku siin doonaan tababaro gaagaaban oo gaar ahaan tababarada hawlgalka goobta. qaybta labaad waxa weeye arbis culus oo dhinaca dibridka ah fire exercise waxaana ka qaybgeli doona ciidamada dhulka, kuwa badda iyo kuwa cirka. waxaanay samayn doonaan in ay hub ku garaacaan bartilmaameedyo cayiman oo ku kala yaala xeebaha badda cas iyo weliba deegaamo dhulka qarfaha ah oo ka tirsan Isiolo dhulka Soomaaliyeed ee ay Kenya maamusho. laanta saddexaad ee arbiskani waxa ay noqon doontaa sida ay sheegeen Ameerikaanku arbis gaar ah oo dhinaca badda ah halkaasi oo dooniyo iyo maraakiib dagaal iyo ciidamada saarani dowlatus ka samayn doonaan. waxaanu ka dhacayaa xeebaha magaalada Berbera ee Somaliland. waaxda afraad ee qaybaha uu arbiskan AJ 23 ka kooban yahay waxa uu noqonayaa arbis ay ka qaybgalayaan ciidamada gaarka ah ee commandosta iyo kuwa hawlgallada gaarka ah fuliya kuwaas oo samayn doona dowlatus ballaaran oo la xidhiidha hawlgallada sida la dagaalanka kooxaha sida gaarka ah loo bartilmaameedsado ee ay argagixisada u yaqaanaan. waxaana qaybtan la adeegsan doona shiishyahanno ama snipers, bartilmaameedyo diyaaradeed iyo kuwa badda quusa ee sida gaarka ah xeebaha uga soo dega. waxaana wehelin doona hawlgallada xilliga habeenimo ee ay ku bartilmaameedsadaan goobaha u cayiman. si gaar ah umay xusin qaybtani halka ay ka dhici doonto waxayse u badan tahay sida aan xogtan ku helay in uu ka dhici doono duleedka xeebaha badda cas ee Berbera iyo Djibouti. qaybta shanaad ee dowlatuskan military waa koorsooyin la xidhiidha difaaca weerarada dhinaca internetka ah kaasi oo ay awoodooda aqooneed ku soo bandhigi doonaan arbisyada la dagaalanka iyo ka hortagga weerarada dhinaca internetka ee loo yaqaano cyber attacks. waxaana uu arbiskani ka dhacayaa saldhigyo dhinaca tiknoolajiyadda militariga ah oo ku kala yaala dalalka Kenya iyo Uganda. qaybta lixaad ayaa ah qaybta ugu dambaysa ee noocyada uu arbiskani ka koobnaan doono waxaanay qaybtani tahay dowlatus military oo la xidhiidha gargaarka degdega ah, gurmadka iyo kaalmada ciidamadu u fidiyaan dadka tabaalaysan ee masiibo dabiici ah ama dagaalo ku waxyeelooba. waxaana ka qayb qaadan doona ciidamada militariga ee gaarka ah ee dhinaca gargaarka iyo gacan qabashada dadka tabaalaysan kuwaasi oo ka kala tirsan dalalkan isku dhafan. intaa haddii aan ka soo gudubno saaxiibayaal, yaa ka qaybgalaya arbiskan military ayaa la isweydiin karaa. haddii aan qodobkaasi hore ka soo gudubno waxaa isweydiin leh waa kuwa ciidamada ka qaybgalaya arbiskan military ee loo yaqaan justified accord. sida aan ka soo xigtay xogta lagu baahiyey mareegta rasmiga ah ee wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka waxaa arbiskan military ka qaybgalaya 20 wadan oo ka kala socda dalalka Mareykanka, Yurub iyo qaybo Aasiya ah. 6 dal ayaa ah Afrikaan kuwaas oo kala ah Rwanda, Uganda, Kenya, Botswana, Djibouti iyo Soomaaliya. dalal badan ayaan magacyadooda lagu xusin oo ay u badan tahay in ay tababarkan ama arbiskan military qayb ka yihiin. waxaanay u badan yihiin kuwo ka socda dalalka Yurub iyo xulafada Mareykanka ee qaaradda Aasiya sida gaar ahaan dalalka Carabta. waxa qaybaha ugu badani ka soo duulayaan saldhigyada Djibouti, badweynta Hindiya ilaa xeebta dalka Kenya. waxaa xusid mudan in wadanka Ethiopia oo ka mid ah dalalka ugu waaweyn bariga Afrika siyaasad ahaanna saameyn weyn ku leh dhinacyada militariga, sirdoonka iyo amnigu aanu qayb ka noqon doonin arbiskan military. kumana cadda Ethiopia magaca dalalka lagu xusay warbixinahan. muddada uu socon doono arbiskan military waa muddo intee leeg. justified accord 23 waxaa la qorsheeyey in uu dhaco bisha soo socota ee February 13 ilaa 24
sanadkan 2023. muddadaasi dhowr iyo 10 maalmood ah waxa saacad walba qorshaysnaan doona hanaan socodka carbiskan oo jadwalkiisa la diyaariyay muddo dhowr bilood ah ka hor. sanad walbana sidan si lamid ah sanadihii ugu dambeeyay la soo qabanayay sida aan soo sheegnay, iyada oo kankii ka horreeyay lagu qabtay waddanka Kenya. qodobka haddii aan ka gudubno waxa iyana isweydiin mudan ujeedada carbiskan laga leeyahay waa maxay. inkasta oo inta badan xogaha military iyo sirdoon ee dunidu qarsoodi yihiin, gaar ahaan Mareykanka oo aan si cad loo faahfaahin, haddana khubarada ka faaloota arrimaha militarigu waxay qabaan in uu qayb ka yahay ismuujinta Mareykanka oo kaashanaya xulfadiisa si uu u muujiyo wujuudkiisa ama joogitaankiisa qaaradda Afrika, gaar ahaan bariga Afrika, gaar ahaan geeska Afrika, iyo saamaynta uu ku leeyahay xaaladaha guud ee amniga dunida. waxa loo yaqaano la dagaalanka argagixisada, ka hortagga Shiinaha iyo Ruushka, iyo adkaysashadiisa uu doonayo in uu ku adkaysto danihiisa dibadda. qoraalka saldhigga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Africom uu ka sheegay carbiskan isaga oo arrintan ka hadlaya waxa uu yidhi: howlgalkan koonfurta Yurub, Afrika iyo Asia waxa hogaaminaya Mareykanka, waana howlgal military oo caalami ah oo isku dhaf ah, multinational command post exercise military. ujeedadu waa si ay awood ugu yeeshaan Mareykanka iyo saaxiibadiisa midaynta howlgallada gaarka ah ee mustaqbalka, qiimaynta wixii tegay, iyo ilaalinta istiraatiijiyadeed iyo dhisme ee awoodda iskaashiga si ay isu hortaagaan wax kasta oo lid ku ah danaha aan wadaagno, si loo xakameeyo gardarro kasta iyo dhaqdhaqaaq kasta oo lid nagu ah. waxa uu soo bandhigi doonaa layli military oo caalami ah, tababar goobeed, layliska dabridka iyo kuwa badda, iyo howlgallada gaarka ah, iyo weliba koorsooyinka ka hortagga iyo difaaca weerarka internetka. waxaa sidoo kale la qorsheeyey mashaariicda gargaarka bani'aadamtinimo iyo bulshada. sidaas waxaa lagu yidhi statement kooban oo lagu faahfaahiyey ujeeddada howlgalkan dhoolatus ee military oo aan sidiisa idinku soo turjumay. qoraal kale oo lagu baahiyey mareegta saldhigga ciidamada Mareykanka ee Africom waxa isna lagu yidhi sida tan: layliga tababar oo socon doona ku dhowaad 2 week waxa gacan ka geysanaya iskaashiga ciidamada Mareykanka iyo Afrika iyo ciidamada militariga ee bariga Afrika. waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo USARF iyo ka qaybgalayaasha bariga Afrika si ay u wanaajiyaan awoodooda, si ay uga jawaabaan khataraha amni ee gobolka ee uga imanaya ururada xagjirka ah, iyo in si wax ku ool ah looga hortago. waxa fikirkan howlgelin loo bedelay oo uu JA soo bilaabmay sanadkii 2017. qaybaha ciidanka Mareykanka ee Afrika waxay qaban doonaan howlgal iyo tababaro xidhiidh ah oo ay la yeelan doonaan howlgal wada jira oo aan la wadaagno saaxiibada Afrikaanka ah bilowga bisha soo socota ee February. ciidamada qalabka sida ee dalalka Botswana, Rwanda, Uganda, Kenya, Djibouti iyo Soomaaliya ayaa ka qayb qaadan doona dhoolatuskan loogu magac daray Justified Accord laga bilaabo dabayaaqada bishan. sidaas ayaa lagu yidhi statementka Africom. saaxiibayaal, haddaba Mareykanku keliya howlgallada noocan oo kale ah kama wado bariga Afrika ee waxa uu ka wadaa howlo noocan oo kale ah goobo badan oo dunida ah. waxaanan ka soo qaadan karnaa kuwa galbeedka Afrika oo uu inta badan ku qabto wadamo ay ka mid yihiin Ghana, Nigeria, Ivory Coast iyo dalal kale. maalinimadii daraad Mareykanku waxa uu baahiyey ogeysiin u dhignayd sida tan: ciidamada howlgallada gaarka ah ee Afrika, US iyo South Africa waxa ay ku dhawaaqeen carbiska military ee Flintlock 2023. layligan oo ah mid sanadla ah waxaa martigelin doona dalalka Ghana iyo Ivory Coast, waxaanu socon doonaa 1 ilaa 15 bisha March ee sanadkan 2023, iyada oo ay ka qaybgeli doonaan 1300 oo askari, kuwaas oo ka kala socda 30 waddan. mawduucaas intaas aynu joogo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.